fadlan sii faafi muuqaalka si uu u gaaro saaxiibo badan mahadsanid. Israa'iil iyo Xamaas ayaa bilaabay xabad joojin 4 maalmood ah saaki oo Jimco ah, iyada oo lagu wado in Xamaas ay sii daayaan 13 haween iyo caruur Israa'iili ah oo la heestayaal ah isla maanta, iyo in ay gargaar bini'aadanimo uu soo gaaro marinka Gaza ee go'doonsan. xabad joojintan ayaa ah tii ugu horeysay ee dagaalka socday 7 toddobaad. xabad joojinta waxay bilaabatay 7 aroornimo ee xilliga Gaza, taas oo ka dhaqan gashay waqooyiga iyo koonfurta Gaza, waxaana ku xigta sii deynta qaar ka mid ah in ka badan 200 oo la heystay oo Xamaas ay qafaasheen intii uu socday weerarkii Islaamiyiinta ee 7 bishii hore ee Oktoobar, sida ay sheegeen dhexdhexaadiyaal ku sugan Qatar. tiro maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku xirnaa xabsiyada Israa'iil ayaa sidoo kale lagu sii deyn doonaa isweydaarsiga maxaabiista labada dhinac. gargaar dheeri ah ayaa la qorsheeyay inuu ku qulqulo Gaza, waxaana la heestayaashii ugu horeeyay oo ay ku jiraan haween da' la sii deyn doonaa 4 galabnimo, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Qatar Majid Al-Ansari, isagoo intaasi ku daray in tirada guud ee la sii deyn doono 4 maalmood ee xabad joojinta ay gaari doonto 50 qof. Masar ayaa sheegtay in 130,000 oo liitar oo shidaal ah iyo 4 baabuur oo gaas ah la geyn doono Gaza maalin kasta marka xabad joojinta la bilaabo, waxaana maalin walba Gaza soo geli doona 200 oo baabuur oo gargaar ah. Xamaas ayaa ku xaqiijisay qadkooda Telegramka in dhinacooda ay qaateen xabad joojinta.